بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تكسود هذا وأمر GR تكنولوجي. ما أنت نوحا إذن وذا 10 آد وحيسة بدن وكسابسا برشادة موقع القرحينتا marka welcome another video. 10 كان و10 كيس دحاد waxaan ku qaadan doonaa ilaa laba qodobka koowaad waa sidaan ugu sameeyaa qoraalka effect, qodobka labaad waa sidaan ugu sameeyaa image ama sawirka effect. haddii aan u guda galo waxaan soo gashanayaa projectiga waxyaalo ka kooban yahay aan rabo maanta inaan idin tuso drag and drop aniga sameynayaan soo gelinaa image-ka. ciladan hadday ku qabsato waxaad taaban kartaa caps logga computerkaaga automatic way ka bixiysaa. dan image-ka waxaan dhigaa dhanka laftiga waan weyneynayaa aniga ku sameynaa resizing meeshu ku habboon yahay ayaan dhigayaa. dib waxaan soo gashanayaa qoraal yar adigoo tagaysa layerka hore text ka dooro اوكي. qoraalka waan soo geliyaa asxaabay. qoraalka waxaan dhigayaa meeshuu ku habboon yahay. dan fast qoraalka ayaan ku sameyn doonaa text, balse intaanan qoraalka soo gelin waxaan rabaa inaan tuso qoraalka inta yidhig. waxaan soo gelinaa another image oo background ugu dhigo meeshaan sida aragteen lyrics-yada. okay, image kale waan soo gashtay. dan zaad ayuu u yaryahay, siskiisa ayaan weyneynayaa anagoo jiidayo. okay, image-kan waxaan ku sameyn doonaa opacity wax loo yaqaano muuqaal, maadaama kale aad soo muuqdo waxaan ka dhigi doonaa wax daciif ah. okay, image markuu inta kaaga dooran yahay projectkaaga waa midka ugu koreeya waxa ku qoran player. waxaad furaysaa halkan, dan waxaad iska furaysaa transform, dan waxaad tegaysaa opacity oo halkatan 100% balse waa yareynaysaa. weli wuu muuqdaa image-ka. opacity ku samee weli haatan 58. okay, sidatan ayaan ku daynaynaa. textigan ayaan dhiganaynaa. haatan qoraalka waa loo jeedaa. okay, qoraalka ayaan weyneynaynaa anagoo tegayno character, dan anagoo dhankaas u jiideyno. okay, haatan cashirkeena waxaan dhaanay qodobka koowaad ayaan u guda gelaynaa sidee loogu sameeyaa qoraalka effect wax dhaqdhaqaaqaya. okay, dan waan imaan doonaa. kuwa inaad select gareysaa qoraalka, dan aad tagtaa meesha ku qoran tahay effect presets, dan waxaad furaysaa animation presets. iska soo weynay midka halkan iska keen. dan waxaad furaysaa maxaad ku sameynaysaa effect. waxaan ku sameynayaa qoraal. waxaad ka raadinaysaa meeshan text aad furaysaa. dan effectyada waa kuwaana kulli waa effects kala duwan, midkaa rabta ayaa ka dooranaysaa. haatan waxaan idin tusayaa effectyaal. waxaan furaynaa 3D adigoo sameynaya drag and drop oo select gareynaysaa koodii hore, dan waa kusii daanaysaa qoraalka. okay, haatan test ayaan ku sameynaynaa anagoo run preview-ga meeshaan ka balay garanaysa weliba dhankaas run preview. weli wax effect kuma sameyn qoraalkeena. okay, haatan waan ku sameynay test ayaan ku sameynaynaa. xabta ujeedin qoraal dhaqdhaqaaqayo ayuu noqday. qaabkaas ayuu noqonayaa. dan effect kale ayaan ku sameynaynaa control z waan ka laabanaynaa. kan waa iska xiraynaa 3D-ga. waxaan ka dooranaynaa graphic, dan dhanka hoose ayaan ka fiirinaynaa green dots kan ayaan soo qaadanaynaa.
hal xab inaan select gareeyaa laga rabaa. dan waan kusii daanayaa. okay cilada haysto waxay tahay qoraalka ma ii select gareysno. waxaan rabaa text inaan select gareeyo. okay haatan waa select gareysan yahay. dan tasta ku samee. kan wax effect ma sameynayo. okay effectii kala raadinayna light options kan for flash kan baraameynayna. marka haatan waxaad ka dooran kartaa effect dhankan right ka ah. marka effectiyadu way badiin asxaabi mid kasta tijaabi adeeg kii ku anfaca markaas muuqaalkaaga ku qurxiso. marka image sidee loogu sameeyo effect. image ka waxaan ku sameyn kartaa image inaad dooratid ka bacdi aad tagtid animation effects inaad tagtid dan aad ka dooratid animation dan aad kasii tagtid image effects visual ama image creative dan aad soo qaadatid aad image-ka kusii daasid automatic image-kayga wax isku bedela color blue ah. marka way fara badan yihiin waa kuwaana ayagoo badan mid ka ratid waa saari kartaa. okay anada mid kale tijaabinayna. image-kayga noocaas ayuu noqday. marka asxaabta adna isku day please hadaad ku cusub tahay channelka subscribe dheh si aad u heshid muuqaalada dambe ee xiisaha leh ee barashada muuqaal qurxinta. asxaabtaadana la share garay fadlan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkayga.